Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta kusoo dhawaada casharkeenan oo ku saabsan mobilka Samsung-ka password baa kaaga xidhmay sidaad passwordka aad uga dhiirgelin lahayd. Asxaabta casharo horena waan soo qaadanay oo ku saabsanaa mobilka password kaaga xidhmo adiga oo aan habkan batteriga looga saarayo aan tegin sidaad ugu dhiirgelin karto oo macnaha Gmail iyo hawlo kale lagu dhiirgeliyo. Maantana waxaan tusayaa haddii Allah awoodda uu idmo mobilkaaga password baa kaaga xidhmay ama battery ha ahaado ama password ha ahaado ama pin ha ahaado kuwa doonaha ha ahaado mid baa kaaga xidhmay. Asxaabta waad aragtaan waa Samsung waad ujeedaan haddaba asxaabta Samsung waa kala duwan yahay. Aan casharkeeda u bilaabo waa kala duwan batteriga geli markaad batteriga geliso taa naaqusaada laga naaquso iyo ta laga shido halkaas iyo dhexdaas ku qabo hal mar waa kow waa taasan horeysinaya waa taa waa saddex laba saasan isku qabanaya cabaar hay dee trouble wuxuu soo baxaan eegno asxaabta waxaas ku soo baxay waad ujeedaa akhri buu ku leeyahay waxaa ku qoran caana wuxuu ku leeyahay meesha laga dalaca taabo haddaad doonayso inaad wax download garayso oo magaranaysaa ay androidka baarkan lagu soo passwordka lagu jabiyo la download garanayo iyo haddaad ka noqonayso oo taabanaysa calaamadda hoosta marka taasina taabanaya asxaabta oo arki doontaa wakaa saasuu ahaanaya in yar sawda in yar 10 second meelaha sawda asxaabta waad aragtaan bismillah 10 second way dhamaadeen ka saar hadaba batteriga wakaa haddaba asxaabta sidaa markuu yahay haddaba tasare imka qabo tasare marka hore toosan qabanayso maahan hadda tasarad qabanaysaa iyo dalacaada iyo keena dhexda taayar bismillah qabta asxaabta wakaa suga wakaa wana cabaarada heynaysaa wuu soo kacay asxaabta ha sii deyn hay ha soo deyn hay waad heynaysaa asxaabta ilaa uu kaaga soo baxo wakaa waad ujeedaan halkaa u sareysa waxaa ku qoran system reboot now apply updates from updates and apply updates from external storage apply factory and reset taas ma aragtaa asxaabta ay ku qorantay apply data factory reset ayaa tagaysaa asxaabta touch ku shaqeyn maayo touch ma aragtaa touch meesha ma shaqeynayo touch ku shaqeyn maayo haddaad hoos tagayso calaamadaas taabanaysaa dalac naaqusaada iyada hoos u dajinaysa dad kurbaxsan tasraa taabanaysa oo keeduna waa tan wada fahanteen okay ila soo markaa eeg waxaan tagnaa halka ay ku qoran tahay web data factory reset now waaye waa kow waa laba waa taa ma aragtaa imkaa taaganaysa asxaabta ayaa tagaysa okay baad siinaysa halka okay markaas si wax xalaaliya waxa ku jira wuu iska tagi doonaa meel yar baa si wax laga bedelayaa intaanaad ilaa aragtaan suga okay xagaan ka sii taas okay ka sii taa waad fahanteen waayahay waxaasoo iska dhaaf halkaa ku qoran tahay yes iyo no maana halkaa ku qoran tahay delete all user data soo ma jeedid halkaasaad ku dhufanaysaa saa soco okay halkaa kasii halkaas ka kasinaysaa in yar baad iska sugaysaa asxaabtahay in yar baad iska sugaysaa wakaa wuu kuu dhamaystiray haddaba maxaad samaynaysaa halkaa u sareysa maaragtaa maxaa ku qoran reboot system now waad ujeedaa ta u sareysa reboot system now ayaa ku qoran okay unsi isagaa iska baktiyaba wakaa asxaabtaay isagaa soo kacaya ila eega isagaas ka soo kacaya isagaas ka soo kacaya aduu yar uu samir isagaas ka soo kacaya aan tusa sida loo buuxinayo haddaba baad in yar hadduu ilaahay awoodda lahaydmo waad iskala sugaysaa in yar
asxaabta wakaa waa soo baxay wakaa wad ujeedaan luqadaad kala bedelanaysaa iyadoo waxaad dooranaysaa qaabka luqadaada ay ku noqonayso imika luqadaas aad u bedelayso wakaa imika sida caadiga tajka caadiga imika u shaqeynaya sida soo iska ahayd halka taabo luqadaad aad u garanaysa ka dhigo koley dee soomaalidu english kumiga oo taqaanaa english ka dhigta wakaa next baad leedahay markaa next waa taa next baad leedahay sim card geli buu leeyahay waan gelin doonaa next baad leedahay wifi-ga buu ii furayaa wifi-ga asxaabta waa muhiim wifi-ga furta kadibna dee intii daawatay ee hore casharada hore qaabkii gmail-kaaga aad marka hore mobilka intaad formaad garayn gmail-kaaga mobilka marka hore waad ku xidhanaysaa backup baad ku samaysanaysaa si ay sawiraantaadii hore iyo contactiskaaga dadkii ku save garaysanayo waxaagii hore o dhan aad u hesho waad fahanteen asxaabtahay dee intaa wixii ka dambeeya waad garanaysaa anaga kasan iskaga diinayay markaa ka garsatay waan islaamayaa dee asxaabta guriga ku cusubnaa subscribe iyo like akay loobina aad u salaamatan assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu